shirkadaha ja kow Ocean labo African Express bishii aynu soo dhaafnay 16keedii ayay ahayd markii guddiga gaarka ay loo magacaabay inay maamulaan arrimaha xajka ay soo saareen shirkadaha ku guuleystay inay daabulaan sanadkan xujayda iyadoona ay kamid ahayd shirkadihii ku guuleystay African Airways ayaa waxa ay ku cabanaysaa maadaama ay tartanka si xaq ah ay ugu soo baxday in aan wali loo soo bandhigin qoondadeeda maamulka shirkadda African Airways oo shirjirayd qabtay ayaa waxa ay si weyn u dhaliileen wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo guddigan ay si hoos u hoostagayaan iyagoona ku eedeeyay iyagoona ku dhaliilay in afka baarkii ay ahayd guushii African Airways loogu waaqay tartankii guddiga xujayda ay soo saareen isla markaana aan wax dhaqdhaqaaq ah ama wax miro dhal ah uusan wali ka soo bixin sidoo kale maamulka shirkadda African Airways ayaa ugu baaqay in wasaaraddu ay ka dhaweyso warkii ay soo saartay 16kii bishii hore ku hadlaayay shirkadda magaca African Express Airways shirkadaasi oo kamid ah shirkadaha ugu da'da waaweyn ee ka shaqeeya dalka Soomaaliyeed una adeega ummadda Soomaaliyeed waxa aanu cabasho ka nahay warqadda ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaaftu ee ujeedadeedu tahay bayaanka guddiga kala saaridda shirkadaha u soo tartamaya adeega xajka taasoo ay ku cadeeyeen in shirkadda African Express darajada ja lagu siiyay qoondada xajka ee shirkadaasi hadda waxaan u cadeynaynaa dhammaan xukuumadda Soomaaliyeed oo dhameystiran in aanayna soo gaadhin ka shirkad ahaan wax qoonda xaj ah oo nala siiyay waxaan ogeysinayaa madaxda sharafta leh in guddigii loo xil saaray qaybinta arintii xajka ay lagu yiraahdeen qaybtiina African Express Airways waa lidin siiyay ilaa ay haddana annaga wax aan hayno email aan wax ku sheegno iyo ayaga meel wax ku sheegaan aysan jirin saas aan ku gacmo maran Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yuulka TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho